السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أغيارته سودوا برنامج كنا مانتا إن شاء الله تعالى وهنربنا إن نكون قاعدة دقنو كممنوع عدة سوغليتان كدل كان مريكان كا اللي يقارنو ترافل بانكا أو ربو إن مدحوينها وصحيحو قالينك وكدوغو ويكا دنبه دولاها إدماء أما أسبوع صوصو عدا مدحوينها دل كان مريكان كا أيات سيا وذا أكتهين به جانوري labaatankeedii bishii koowaad labaatankeedii sanadkan 2025 maalinkii loo dhaariyay madaxweynenimada dalka Mareykanka waxa uu saxiixay digreetooyin aad u fara badan digreetooyinkaas waxa kamid ahayd mid ay ku qoran tahay in dalka Mareykanka uu ka ilaalin doono argagixisada foreign-ka ah ama dalalka shisheeye ka timi iyo in uu ilaalin doono badqabka dadka Ameerikaanka ah ee dalkan Mareykanka ku nool marka iyadoo laga duulayo digreetadaas madaxweynaha uu saxiixay waxa uu digreetadaas hoos iman doona travel ban dad loo diidi doono inay dalkan soo galaan iyo wadamo marka tabintan waxaan ku eegi doonaa liiska wadamada uu sheegay madaxweynaha in aysan soo gali doonin dalkan Mareykanka kadib marka la saxiixo oo aan visa la siin doonin waxaan kaloo eegi doonaa sida ay hadda u saameysay inta aan la saxiixin ba wadamadaas dadka kamidka ah oo yimi xilligii Biden oo viisaha halkan ku jooga kuwii la siiyay oo dalkooda wali aan ka soo bixin viisaha iyo kuwa hadda ka dambe la siin doono iyo kuwa dalkan already joogaba oo arrimo waxbarasho iyo u jooga intaba aan ku bilaabay marka hore waxaan rabaa inaan eegno 2017 haddaan idinka taariikheeyo 2017 madaxweyne Trump markii uu imaaday madaxweynenimada waxa uu saxiixay 6 wadan oo islaam u badan in uu ka joojiyo inay yimaadaan dalkan Mareykanka 6 wadan marka waxa kamid ahayd Iran, Sudan, Syria, Yemen, Somalia iyo actually Libya ayaa ku jirtay waxa marka digreetooda uu saxiixay waagaas ama travel bank uu soo saaray oo ka mamnuucida dalkan inay soo galaan muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda waxa marka hore uu sameeyay 3 mar ay maxkamad ku celisay marka hore wuxuu sameeyay wadamadaas dadka ka soo jeeda oo hatta green card ka dalkan Mareykanka ka haysta oo permanent residency-ga oo kaarka deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan Mareykanka haystay buu wuxuu damcay in uu ku daro liiska dadka uu ka joojinayo muwaadiniinta ka soo jeeda dalkaas oo aan dhalasho Mareykanka haysan laakiin ka haysta deganaansho rasmi ah dalkan Mareykanka oo permanent residency in uu ku daro maxkamad ayaa madax kaga istaagtay arrinka isaga ah oo tiri dadka green card ka haysta xadgudub bay ku tahay qof permanent residency Mareykanka haysta inaad ku dartid madaxweynaha marka taas uu ka noqday qaybta hore wuxuu haddana saxiixay mid labaad oo ay ku jirtay wadanka Iraq and then maxkamad kale ka daba timi oo tay wadanka Iraq travel bank kuma dari kartid oo dadka ka reebaysid dalkan inay soo galaan kuma jiri karaan uu ka noqday Iraq ayuu ka saaray 6 wadan ayuu ku soo reebay 6 wadan markuu soo reebay 2018kii maxkamadda way socotay 2018kii maxkamadda Supreme Court-ga dalkan Mareykanka u sareysa ayaa waxa ay ku raacday go'aankii madaxweynaha oo u ansixisay in 6 wadan ay ku jirto Soomaaliya of course the reason ka hadda idinku soo tabinayo kamid tahay Soomaaliya ay ku jirto in travel bank uu sax yahay bay sheegeen wayna ku raaceen madaxweynaha inta markay dhacday waxa madaxweynenimadii uu ka degay 2020 iyadoo sidii uu u saaran yahay travel banki ama imaanshihii dalka Mareykanka in loo diido so mamnuuci isaga uu saaran yahay dalalkaas ayaa waxa imaaday madaxweyne Biden waxa kale oo markaas iyada ah oo madaxweyne Trump uu sameeyay in uu extra vetting waxa la yiraahdo ama baaritaan dheeraad ah iyo background checks uu ku sameeyo dadka wadamadaas ka soo jeedo so shuruucdii oo dhan waxa hoos u dhigay oo dabciyay madaxweyne Biden intii uu yimi madaxweyne Biden maalinkii uu ka tagay dowladnimada madaxweynenimadana January 20 oo madaxweyne Trump loo dhaariyay meeshiisii ayuu ka meesay madaxweyne Donald J Trump madaxweynaha hadda jooga
waxaana uu extra ku sii daray weliba subis buu ugu sii daray waxa uu sheegay in dadka waxaa lagu soo daray hadda liiska soo socda hadduu ilaahay idmo wuxuu noqon doonaa Libya, Iran, Sudan, Syria, Yemen, Somalia waxaana lagu sii xawaaji looga dhigay lagu sii cusbeeyay North Korea, Cuba iyo Venezuela ayaa lagu darayaa so intaas oo wadan ayaa la rabaa haddii ilaahay idmo next week as soon as next week sida u raqsiyaha badan in uu ka joojiyo soo galitaanka dalkan Mareykanka marka waxaan idin sheegay horay dadkan maxaa extra ku ah oo saameyna oo ay ku yeelatay dadka wadamadaas ka soo jeeda iyada oo hataa ka horeyso inta aan la saxiixinba digreetadii lagu joojinayay dadkaas waxa ay ku yeelatay wadamo arday fara badan oo ka soo jeeda wadanka Libya oo hadda haysata viisooyin jaamacadana ka dhigta dalkan Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa in sida journalka uu warinayo The New Arab Journal yiraahdo in laga kansalay viisihii ay ku joogeen dalka oo ardaynimada ahaa student visas oo Libyan students baa laga kansalay waxaana loo sheegay in safaaradda u dhow ay aadaan oo dalkan Mareykanka ah si loogu sameeyo baaritaan dheeraad ah oo loo hubiyo sababaha ay inta u joogaan inay ardaynimo kaliya tahay iyo in kale iyo waxyaabo kale adiga oo arrimo ku saabsan xagga amniga oo uu rabo madaxweynaha in uu ku soo rogo viisooyinka cusub oo la siin doono dalalkaas marka waxaa la sheegayaa sidoo kale in Pakistan lagu soo dari doono iyo Afghanistan inkasta oo la sheegay sida la sheegay 200,000 oo qof oo Afghani ah ay yihiin visa sugayaal maadaama sida la sheegay ay xilligii Mareykanka 20 sano oo uu ku jiray Afghanistan ay Mareykanka la shaqeynayeen dadkaas waxaa loo ogolaaday in visa la siiyo haddii marka madaxweynaha uu ku adkaysto Afghanistan in uu ku daro dadkaas oo dhan waxay ku jiraan baa la yiri Qatar ay ku jiraan so wadamada marka wuxuu sameeyay Afghanistan iyo Pakistan in lagu soo daraa la rajaynaya laakiin 100% lama hubo laakiin inta la hubo waa inta wadana hadda aan idin soo sheegay kor idin ku soo list gareeyay aan hore idin ku sheegay maxaa marka dhici kara wadamada waxaa la sheegay in la rabo in uu ka sameeyo madaxweynaha in uu rabo in uu kala saaro red listka qadka ahmarka ama la jiray oo gaduudka ah orange list orange ah iyo wuxuu rabaa in uu madaxweynaha ka dhigo yellow list wadamadan marka la rabo in dalka laga mamnuuco Mareykanka inay yimaadaan waxaa la rabaa in 3 category ama 3 qayb loo kala qaybiyo qaybta koowaad waxaa laga dhigaa red list oo ah waxaana red listigan waxaa ku jiraayo wadamadii hore oo sanadkii hore 6 wadan oo all of them guaranteed muslimiinta ahaa ayaa ku jiraayo plus waxaa lagu dari doonaa Afghanistan iyo possibly waxaa laga yaabaa in lagu daro Pakistan 6 wadan Afghanistan iyo Pakistan oo la rajeynayo in lagu soo daro wali aan la hubin waxaa iyaga laga dhigayaa red list liiska qadka ahmarka ah oo totally wax visa oo la siinayo sida la sheegay ma jiraayo waxa kale oo la sheegay in hatta hadii visa la bixinayo oo qof uu caruurtiisa keensanayo ama waalid ilmihiisa maartay ilmihiisa ay keenayaan ama oday uu ooridiisa keensanayo ama ooridii ay odayga keensanaysa saygi waxaa dhici doonta in extra vetting lagu sameeyo baaritaan dheeraad ah oo background check extra la mariyo waxa marka jiri doono wadamo la yiraahdo orange listigan waxa weeye muwaadiniinta ka imaanaya dalalkan waxa ay face gareyn doonaan visa applicationka ay soo buuxiyeen oo visa ay dalka ku imaanayaan waxa la marinayaa background check stricter application visa application process waa lagu adkeynayaa visa application kooda ay ku imaanayaan dalkan dadka dhaqaalaha leh waxa la yiri oo wadamadaas ka soo jeedi doona orange listiga ayaga waxa uu la siin doonaa
visa business kaliya ay ugu imaan doonaan dalka Mareykanka, laakiin waxaan loo ogolaan doonin inay u soo immigrate garayaan oo u soo halkan ay soo degaan iyo in ay tourist visa ay ku sameeyaan. waa si heavily ayaa loo restrict garayn doonaa, si culus oo weyn ayaa loo restrict garayn doonaa dadkaas in ay soo galaan dalka Mareykanka. So waxaa kaloo jira marka yellow list countries, wadamo yellow laga dhigi doono. kuwaas laga dhigayo yellowga waxaa iyaga laga rabaa, waxaa la siin doonaa 60 maalin in ay kor u qaadaan security measureska, tallaabooyinka ay security ka qaadayaan, iyo in ay information sharing protocolka Mareykanka in ay informationka la share gareeyaan with the US. dadka sida ay ula shaqaynayaan dawladda Mareykanka ayaa iyagana ay ku xiraan doontaa. So 60 maalin baa la siinayaa si ay u noqdaan compliant ama ay ugu hoggaansamaan protocolka lagu iskula wadaago informationka oo uu Mareykanka hoggaamin doono. haddii ay diidaan marka ama ay comply gareyn waayaan, failure to comply, waxa ay noqon doontaa in la saaro partial or full travel restriction ama xanibaad oo half ah ama mid full ah, oo waxaa lagu dari doonaa, waxay u dalici doonaan red list countries. So far hadeer wadamadaas la sheegay ayaa rajeynaya in lagu daro kulligood, iyo Afghanistan iyo Pakistan in lagu soo darona waa la rajeynaya. waxaa kale oo hadda already sidaan idin sheegayba ay affect garaysay oo saameyn ay ku yeelatay arday Libyaan ah oo jaamacad inta ka dhiganayay oo viisaha studentiga already haystay oo arday ka ahaa, kulli waa laga kansalay sida la sheegay, most of them waxaana loo diray safaaradaha. kuwa kale oo sugayay in la siiyo visa waxaa loo diray safaaradda ku taala Tunisia si loo mariyo interviews kale looga qaado waraysiyo oo loo mariyo extra vetting before aan loo ogolaanin viisaha in la siiyo. So arrinkaas ayaa soo kordhay oo travel banka sida la sheegayo uu soo socdaa, waxaana la rajeynayaa ama loo malaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wiiga ama usbuuca soo socda la ansixin doono arrinkan isaga ah. intaas ayaan rabay inaan idinka dabageeyo. waa mahadsantihiin. wixii su'aala hoos way ugu soo weydiin kartaan. Don't forget to like, subscribe and share the video inshallah. Peace.